kooxda Manchester United ayaa garoonkeeda Old Trafford waxa ay ku soo dhaweynaysaa kooxda Arsenal saacada markay tahay 1 saac iyo waliba 30 daqiiqo labada kooxood ayaana ku jiraan xaalada aad u adag kooxda Manchester United ayaa fadhisa kaalinta 15aad iyadoo kaliya 7 dhibcood ka heshay 5 ciyaarood ee ugu dambeeyay halka Arsenal 3 ciyaarood ee ugu dambeeyay horyaalka Premier League laga soo badiyay ee iyadana kaalinta 11aad ay ku jirto dhibaato badan ayaa la soo diristay labadan kooxood horyaalka waqtigan bilowga ah waxaana Manchester United la yaab ku noqotay in Tottenham Hotspur bishii October garoonkeeda Old Trafford ay kaga badisay 6-1 iyadoona guuldaro aad u qaraar ah dusha loo saaray inkastoo kooxda Manchester United ay guulo dahabi ay ka soo gaareen tartanka Champions League oo ay garaaceen kooxaha RB Leipzig iyo kooxda PSG iyo waliba kulankii barbaraha ku idlaaday ee Chelsea ay wajaheen haddana wali waxa daba taagan guuldaradii Tottenham Hotspur oo ay ku dhufatay 6 gool marka Arsenal ay iska hor yimaadaan kooxda Manchester United ayaa looga baahan yahay inay gool ay la timaado si ay sare u qaado hardanka ee ugu jirto horyaalka English Premier League ama kaalmaha ugu horeeya haddii kale waxay sii gali doonaan xaalad aan la qiyaasi karin Arsenal ayaa dhinaceeda sugaysa in uu hurdada uu ka tooso weeryaankeeda reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang oo gool-dhalintiisii ay yaraatay isla markaana intii uu saxiix qandaraaska cusub noqday mid garoonka dhexdiisa ku dhibaatooda weeryaanka reer Gabon oo xilciyaareedkii hore ka mid ahaa weeryahanada ugu waaweyn ee qaaradda Yurub isla markaana wax yar ka horeeyay gooldhaliyaha Leicester City Jamie Vardy oo kabta dahabka ku guuleystay ayaa hal gool oo kaliya dhaliyay 6 ciyaarood ee ugu dambeeyay waxaana uu ahaa midkii uu Europa League uu ka dhaliyay kooxda Rapid Vienna kulanka caawa ee labada kooxood ayaa ah midkii 233aad ee markaas iska hor yimaadaan labadan kooxood waxaana Manchester United ay u noqon doontaa guushii 100aad ee ay ka gaaraan kooxda Arsenal haddii ay 3 dhibcood ay gacanta ay ku dhigaan ciyaarta caawa Arsenal ayaa dhinaceeda wax badan ka dambeeyeen naadiga Manchester United waxaana ay guuleysatay 84 ciyaarood halka 49 kalena ay barbarac ay galeen Arteta ayaa ciyaartan si fiican isugu sii diyaariyay waxaana uu kulanka Europa League ee isbuucan uu ka dhigay xidigaha ay ka mid yihiin William Lacazette iyo Aubameyang inkastoo ay xogaha qaarkood ay sheegayaan inay jiraan dhaawacyo ay qabeen qaar ka mid ah laacibiintiisu Bukayo Saka ayaa la filayaa inuu ku soo bilaaban doono ciyaartan isagoo bedeli doona Lacazette oo taamahashiisa shakil gelinayo balse waxa gaab ahaanba maqan David Luiz oo dhaawac soo gaaray taasoo ka dhigan in Mustafi uu haysto fursad uu kaga soo garab ciyaari karo xidiga Gabriel Magalhaes kooxda Manchester United ayaa heli doona Anthony Martial oo kulankii ugu dambeeyay 3 ciyaarood oo ganax ah ku maqnaan doona waxaana uu sii raacaya Alex Telles oo xanuunka coronavirus ciyaartan uu ku seegi doono isagoo ku jira wili karantiil tababare Solskjaer ayaa la filayaa inuu ku ciyaaro xidigihii uu kaga hortagay kooxda reer Jarmal ee RB Leipzig iyadoo ay afka hore ku soo wada bilaaban doonaan xidigaha kale ah Marcus Rashford iyo Mason Greenwood Donny van de Beek Nemanja Matic ayaa keedka ku jiri doonaan balse Fred Bob-Tomani ayaa qadka dhexe ku soo wada bilaaban kara halka Bruno Fernandes uu ciyaari karo lambarka 10aad Manchester United waxa macquul ah inay garoonka ay ku soo bilowdo caawa De Gea Wan-Bissaka Lindelof Maguire Shaw Fred McTominay Pogba Fernandes Greenwood iyo Rashford Arsenal waxa macquul ah Leno Bellerin Mustafi Gabriel Magalhaes Tierney Ceballos Thomas Shaka William Aubameyang iyo Saka ciyaartan ayaa bariga Afrika laga daawo doonaa 1 saac bar habeenimo waxaana garsoori doona garsooraha reer England ee Magdeen iyadoo ciyaartan ay ka dhici doonto garoonka Old Trafford aragtidaada ka dhiibo maxay kula tahay ciyaartan